Kenya ayaa qarka u saaran inay ku guuleysato kursiga golaha ammaanka qaramada midoobay ee ka soo galaya qaaradda Afrika. Asbuuca dambe waxay golaha ammaanka qaramada midoobay u codayn doonaan labada dal ee Kenya iyo Djibouti dalkii ku soo biiri lahaa kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka. Labada dal ayuu darisa isla markaasna Soomaaliya ay xuduud wadaagaan ayaa ku guul dareystay inay isku tanaasulaan oo ay hal dal oo kaliya tartanka ay uga qayb galaan isla markaasna hal dal loo daayo kursiga qaaradda Afrika ku matalaya golaha ammaanka. Qoraal ka soo baxay midowga Afrika ayaa lagu sheegay in qaaradda Afrika ay soo xulatay dalka Kenya oo u magacowday inuu uga qayb galo tartanka kursiga golaha ammaanka. Dhanka dhexana dalka Djibouti ayaa dhankiisa waxa uu abaabul ka dhacsameeyay wadamada ku hadla afka Faransiiska iyo Carabiga iyo sidoo kale qaaradda Afrika dalal kamid ah. Waxa uu sheegay inaysan la qaban doonin go'aankooda midowga Afrika ka yimid ayna doonayaan inay taageero ka helaan wadamada caalamka. Dhanka dawladaha Itoobiya iyo Masar ayaa dhankooda shaaciyay inay taageerayaan dalka Kenya halka dawladda Mareykankana ay taageersan tahay Kenya halka dalka Shiinaha la filayo inuu taageero dalka Djibouti. Dawladda Mareykanka ayaa iyadu saameyn xoog leh ku leh geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya waxayna u muuqataa in taageero buuxda ay sii doonto dalka Kenya. Su'aasha u baahan in la isweydiiyo xilligan ayaa saameyn intee la eg ayay doorashada Kenya ee golaha ammaanka ku yeelan doontaa dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa la filayaa inay garab istaagto Djibouti oo iyadu ah wadanka ugu dhow ee Soomaaliya marka loo eego luqad ahaan iyo sidoo kale daris ahaan ayna Djibouti tahay qayb kamid ah dhulkii la isku oran jiray shanta Soomaaliyeed iyadoo iminkana dal madax banaan saaxiibo dhowna ay yihiin dawladda Soomaaliya. dawladda wadanka Djibouti waxay dadaal xoogan ugu jirtaa inay hanato qayb kamid ah qulubta wadamada geeska Afrika si ay u hanato inay ugu codeeyaan kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay ay ku yeelanayso qaaraddan Afrika. ururka midowga Afrika ayaa hore u sheegay in dawladda Kenya ay u socosheen kursigaas balse dawladda wadanka Djibouti waxa ay sheegtay inaysan arintaasi aqbali doonin ayna ku tartami doonto awoodooda. lama ogaan karo cidda ku guuleysanaysa balse dadka qaarkood waxay si weyn u saadaalinayaan dawladda wadanka Kenya maadaama ay haysato taageero badan oo kaga imaanaysa ururka midowga Afrika, Mareykanka iyo sidoo kale dawlado badan oo quwado leh halka dawladda Djibouti ay baadilkoobayso saaxiibo badan oo u codeeya si ay ugu soo baxdo kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay.